xafladda xil wareejinta xogayaha cusub ee degmada Salaxley dhawaan loo soo magacaabay Muxyidiin Cabdilaahi Axmed iyo xogayihii hore ee degmadaasi Maxamuud Maxamed Yuusuf waxa ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay xogayaha cusub ee degmada loo soo magacaabay siina sagootiye xogayihii hore maayarka degmada Salaxley Axmed Buraale Iimaan maayar ku xigeenka injineer Maxamed Cabdi Haariye siyaasiyiin odayaal madax dhaqameed iyo dhalinyaro waxaana ilaahay uga bariyeen xogayaha cusub ee degmada Salaxley loo magacaabay inuu xilkaasi ku asturo munaasabada runtii aynu ku sabootayno xogayihii hore ee dowladda hoose Maxamuud Maxamed Yuusuf runtii muddo soo shaqeeyay isla markaana aynu ku soo dhaweynayno xogayaha cusub ee dowladda hoose injineer Muxyidiin Cabdilaahi Axmed xogayaha hore runtii waynu ducaynaynaa waan muddo runtii soo shaqeeyay dowladda hoose runtii shaqo badan soo qabtay aad buu ugu mahadsan yahay waynu ducaynaynaa xogayaha cusubna runtii waan soo dhaweynaynaa xogaye Muxyidiin iyo xogaye Maxamuud waxaan halkan ka xusayaa xogaye Maxamuud intii uu joogay shaqadii fiicneed ee degmada u hayay sida xilkasnimada iyo waayaragnimada ee uu magaranayay runaantii dowga shaqeynayay Muxyidiin waxaan leeyahay kulliina dhalinyarada baa tahay aqoon-yahana insha Allah waxaan rajeynayaa halka uu Maxamuud soo gaarsiiyay insha Allah taala si dhaafiso waxaan kula dardaarmayaa xogayaha cusub maadaama uu reer Salaxley yahay reer Galbood yahay nin dhalinyaro aqoon-yahana yahay insha Allah billahi karim miisaaniyada inuu xoog saari doono sabxidada ku jira horumarinta sida la sheegay waa sabootin aynu sii ducaynayno xogayaha hore xogayaha cusubna soo dhaweynayno alxamdulillah waa mid ilaahay loogu mahadnaqayo waa sagootin iyo soo dhaweyn mahadle waxaan maanta munaasabadan sagootiga xogayihii hore iyo xogayaha dambe kala wareejintooda inaan ka soo qayb galo mahad weyn ayaan u jeedinayaa marka ugu horeysana waxaan la wada dardaarmayaa golaha deegaanka ee maka iyaguba cusub in yar ka soo horeeyay dhinacooda waxaa xafladdaasi xil wareejinta ka hadlay xogayaha cusub ee degmada Salaxley loo magacaabay Muxyidiin Cabdilaahi Axmed iyo xogayihii hore ee degmada Maxamuud Maxamed Yuusuf waxaana yiraahdeen waxaan aad u soo dhaweynayaa xogayaha cusub ee xilkan ku wareejinayo ayana aad u soo dhaweynayaa waxa kaloon kelmad dardaarana odhanayaa shaqaalaha dowladda hoose waxaan isku dardaarayaa saa u shaqayn jirteen marka horeba si la midana ula shaqeysaan xogayaha cusub bacda salaan horta aad baan u dareensanahay mas'uuliyadda culus ay fushay waxaan laba mid baan ka codsanayaa marka hore waxaan ka codsanayaa in dhammaantiin igu soo ducaysaan in Allah ii fududeeyo mar labaadkana waxaan ka codsanayaa in ay la shaqeysaan ugu dambeynna waxaa xogayaha cusub iyo xogayihii hore ee degmada Salaxley xilka u kala wareejiyay maayarka degmada Salaxley Axmed Buraale Iimaan Mawlid Maxamed Saciid degmada Salaxley